dowladda Soomaaliya ayaa ka shaqeynaysa mar kale sidii gobolada waqooyi ee Somaliland ay u soo dari lahayd xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. dadaalo xoogan ayaa ka dhex taagan gudaha dalka Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi oo ka socda dhaqdhaqaaqyo culus oo ay wadaan mas'uuliyiin ka socota dowladda federaalka ee Soomaaliya. xogo sirdoon oo la helaya ayaa tibaaxaya in mas'uuliyiin Soomaaliyeed ay halkaasi kulamo gaar ay la qaadanayaan sidoo kalena ay kala hadlayaan arrimo ay ka mid yihiin sidii loo mideyn lahaa guud ahaan ee Soomaaliya iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya xooga saaraysa sidii mar kale gobolada waqooyi loola mideyn lahaa gobolada koonfureed. dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka taagan caasimadda Nairobi ee dalkaasi ee Kenya. dhinaca kalena Somaliland ayaa iyaduna si rasmi ah war-saxaafadeed ugu soo saartay kulamadan oo mas'uuliyiin reer Somaliland ah isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ka soo jeeda Somaliland ay dhaqdhaqaaqyo culus ay ka wadaan gudaha Nairobi iyadoo la sheegay in kulamo xasaasi ah u dhaxeeyo mas'uuliyiin iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya kulamo kala dhaxeeyo mas'uuliyiin ka socota Somaliland. kulanka ayaa la sheegay inuu yahay kulamo qarsoodi ah oo ka dhex socdo gudaha Nairobi caasimadda dalkaasi ee Kenya. wasiirka madaxtooyada Somaliland oo ka hadlay arrinka wuxuu sheegay in tallaabo culus ay qaadi doonaan sidoo kalena ay og yihiin in siyaasiyiin reer Somaliland ay dhaqdhaqaaqyo culus ay ka wadaan gudaha Nairobi isagoona sheegay xogaha ay helayaan ay tahay in kulamo siyaasadeed ay la qaadanayaan siyaasiyiin iyo sidoo kale madax ka socota Soomaaliya iyo isagoona sidoo kale xusay in arrinka ay kala hadlayaan ay tahay sidii loo xagal daacin lahaa maamulka imika ka jira ee Somaliland isagoona sheegay inay ka waantoowaan dhaqdhaqaaqyada imika ay wadaan haddii ay dhici weysana maamulka Somaliland ay qaadi doonaan tallaabooyin arrinkaasi ay uga hortagayaan. wasiirka hadalkiisa hordhaca wuxuu sheegay inay og yihiin shakhsiyaad iyo sidoo kale siyaasiyiin reer Somaliland kuwaas oo imika xilal muhiim ah ka haya maamulkaasi. uu sheegay in kulamo gaar ay ka wadaan gudaha dalka Nairobi sidii loo xagal daacin lahaa maamulkaasi Somaliland iyagoona mas'uuliyiin ka socota Soomaaliya kala hadlay sidii waqooyi gobolada waqooyi looga beerin lahaa koonfurta. wixii faahfaahin kale ka soo kordha halkan kala socmaasana.